Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibayaal, kusoo dhawaada janaalka Caalam Dahsoon. Hadday tahay markaagii kugu horreysay aad halkan joogtid, fadlan kusoo biir bahweynta halkan aanu ku showrno. Hubi inaad calaamadda cas taabatay, isla markaana halkan nala joog. Waxaan soo gelinnaa barnaamijyo maalinle ah kuwaasi oo faa'iido leh. Bishii Noofembar 3, 1954, Midowga Sofiyeetku wuxuu suuqa magaalada weyn ee Moscow ka soo qabtay ay guri joog ahayd oo lagu magacaabi jiray Laika Gasenko oo ah saynisyahan loo carbiyay inuu tababaro eyga Laika ayaa dariiqyada ku baacsanayay eeyo fara badan. Ugu dambeyntiina wuxuu helay ey loo yaqaano Laika. Ujeedada laga leeyahay ayaa ahayd in samada loo diro si loo ogaado in noole ku noolaan karo samada ama space-ka. Gasenko wuxuu leeyahay eeyahay yari waxaan kuu diri doonaa samada. Waxaan rajaynayaa in maalin uun bini aadamku ku soo raaci doono kuuna aayi doono. bini aadam halkan naftooda halis kuma gelin karo, sidaas darteed waa inaad adigu aadid eeyahay yari. Nolosha Laika waa gabagabo ka hor inta aan samada loo dirin ee aan dayax gacmeedka la saarin. Gasenko oo ah saynisyahan ayaa tababar siiyey. Tababarkaas oo ku siiyey qaabka ay ugu noolaan karno samada inta ay samada sii saaran tahay dayax gacmeedka. Wuxuu Gasenko leeyahay Laika waxay ahayd ey qurux badan oo aad u faraxsan, balse waxaysan ogeyn in ay nolosheedu soo dhammaatay. Laika waa ey 3 jir ah. Laika waxay noqonaysaa noolihii ugu horreeyay ee samada ama orbitka dhulkeena ku wareega. Waxaa lagu riday dayax gacmeed waxaana 3 Noofembar 1954 loo diray samada. Daqiiqadihii ugu horreeyay wax kasta caadi ayay ahaayeen, balse saacado kadib waxaa go'ay systemkii Laika. Laika ku xirnaa, waxayna ay taasi sababtay in jirkeedu uu aad u kululaado oo overheating uu ku dhaco. waxna ma samayn karin Laika maxaa yeelay ma jirin teknoolojiyad ama qalab Laika dib u soo celin karay, dhulkana dib ugu soo celin karay. Daqiiqadihii ugu horreysay wax kasta caadi ayay ahaayeen, balse saacado kadib waxaa go'ay systemkii. Halkan ayay ka bilaabatay arrin musiibo ah. Daqiiqado gudaheed ayay ku dhimatay eydii yarayd ee Laika. 162 maalmood kadib waxaa hawada dhulka soo galay dayax gacmeedkii Laika la saaray, balse guud ahaanba waa uu gubtay. Laikana xitaa raqdeedii iyo jirkeedii hal xabo lagama arag. Dad fara badan ayaa Midowgii Sofiyeetka ku dhaliilay arrintaasi, waxayna sheegeen inay khalad ahayd in la isticmaalo noole xayawaan buhaayin ah iyada oo noloshiisa loo dhaafsiinayo helidda aqoon raqiis ah. saynisyahankii Laika tababaray ayaa 40 sano kadib sheegay inuu ka shallaynayo arrintaas. Wuxuu yidhi ma ahayn wax fiican, mana aysan ahayn in aan sameeyo, maxaa yeelay aqoon iyo macluumaad fara badan kama aanu helin dayax gacmeedkii Laika la saaray. Nasiib darro, Laika halkaas nolosheeda ayay ku weyday. Dad fara badan ayaa arrintaas ku dhaliilay Midowgii Sofiyeetka. Qaar ka mid ah ayaa leh waxaa jira boqolaal dambiile oo dad laayay oo xabsiyada ku jira, qaybtooda ayaa lagu tijaabin karay inta ay miskiina la dilayo. Adigu sida oo aragtaa daawada in ay miskiina la laayo isla markaana lagu tijaabiyo helidda aqoon aadame. Mase aaminsan tahay aragtida ay dad fara badan qabaan oo ah in dad fara badan oo dad laayay ee xabsiyada ku jiraan ayna mudnaayeen in iyaga samada loo diro? halka hoose ee qaybta commentiga noogu soo qoro faallada iyo jawaabtaada ku aadan arrintaas. Habeen wanaagsan iyo maalin wanaagsan goorta idin tahay. Ha ilaawin inaad subscribe saartid haddaad ku cusub tahay si ay kuu soo gaaraan barnaamijyada aan halkan maalinlaha u soo gelino.